kusoo dhawaada maantana cashar cusub waynu ka diyaarinay barnaamijkan yariiska waa barnaamijkaas ama programka yar ee Android-ka ku shaqeynaya oo la yidhaahdo DU Recorder. DU Recorder waxa weeyaan inuu kuu duubo shaashadda ama muraayadda telefoonkaaga sidaan hadda ugu duubayo shaashadda ugu duubayo programka laftigiisa aan isticmaalaya waad aragtaan minuteska ku halka ay socda. marka barnaamijkan baa waxyaabo aasaasi idinka barayay sida loo isticmaalo. waxaad ka soo helaysaa barnaamijkan Play Store-ka waad ka helaysaa, yani haddaad Play Store ka qortay UD Recorder wuu kuu duubayaa screen-ka muraayadaada. marka aad iyo aad buu ku caawinayaa. waxaa la odhanayaa DU Recorder, marka waa kaa ugu sarreeya aniga uu igu jiraa. marka waad isticmaalaysaa insha allahu. markaad gudaha u gashid waad la soo degaysaa. aad uma weyna, waxaan malaynayaa yahay 12 GB weeye, 12 MB baan wada cafan. 12 MB telefoonka kuu qaada program fudud ka fududaya kuwa kale. qaar kaloo la isticmaalo baa jira iyagana. marka iyagana waad raadin doontaa insha allah. marka programkaas waa program aad ku anfacaya. waa programmadana wax lagu duubo oo muraayadaada kuu duubaya ama screen-kaaga si fiican kuugu duubaya. haddaba aniga wuu igu jiraa. markaad kusoo shubatid programka, telefoonkayga wada application buuxee. markaad soo furatid waad soo furaysaa. marka waxyaabo wuxuu leeyahay aad iyo aad u cajiiba. xaggan imika joognaa waxa weeyaan waa qaybta videoga. xaggan kale waa sawirran, dad wax sawiro qaadin macal screenshot buu kaga qaaday telefoonkaaga. xaggan kale wuxuu ku sameeyaa live. halkaasaad imika tegaysaa ay ku qoran tahay live ayaad ku dhufan. live ta markaad gashid yani waxaad live stream baad ku geli kartaa, uu ku duubi doona hadhow. imika waxbaynu duubaynaa, laakiin haddaynu ka baxno marka hore soo bilaabaysaa live stream marka doonaysid wax duubaysid. live stream-ka horeysiinaysaa. marka yani live stream-ku waa iskuma qaban kartid in wax kuu duubo. live stream-ka kuu duubayo uma baahnid. imika iskuma duubi kartid wax record garin live stream ma isticmaali kartid. xaggan waxaad imanaysaa setting-kaas oo kale. xaggan wuxuu leeyahay inaad video edit samaysid, inaad maxaa la dhahay video gift inaad samaysid oo video u bedeshid. gift waa convert inuu isku bedelo. wifi transfer, edit image sawiranta ku bedeli kartaa. xaggan aan imaadno setting-ka ma doonayn aad iyo aad wax badan uga ogaano. kar waa video resolution-kii muuqaalku videoga noqon doono ama muuqaalada videoga u samayn doontid. yani video quality xaggan waxa weeyaan recommended in videoga noqdo halka ku joogo. xaggan kale waxa jirta wax la yiraahdo video orientation. videoga nooc noqonaya ma landscape ma portrait ma automatical ba midka doonaysid. allahu musta'an. videoga haddaan xaggan rogno iyo haddaan xaggan telefoonka rogno labadaba yani uu duubaya. xaggan kale waxa jira video location hadduu telefoonka kugu jiro memory kugu jiraan oo kale wuxuu kugu duubaya marka internal storage ku duubaya memory wax memory ma jiraan. xaggan waxa jira wax la yiraahdo recording mode. recording mode ma basic noqonaya mise standard waa kalba cabirka doonaysid. yani waxyaabo badan oo addition buu leeyahay. halkan wuxuu leeyahay inaad samaysid shake wuxuu ka wadaa telefoonka samarka u luxid ayuu videoga dhanka duubay uu istaagay. haddana telefoonka luxo adigoo xaggan soo furanin oo aan xaggan iga odhan pause iyo waxa isticmaalin ayuu automatic isagu isku jaraya. xaggan kale wuxuu ku leeyahay kalba aragtaan inaan isticmaalayo brush tool kaas yani intan doonaan ku calaamadsanaya. waxaan doonaan ku calaamadinaya. marka waa brush tool isaguna ku calaamadinaya. hoostan wadno maxaa ku jira halkan kale maxaad ku aragtaan inuu leeyahay pause recording for income call. inuu kuu pause gareeyo markuu call kugu yimaado uu kuu pause gareynaya. kadib marka telefoonka ku heshay halka waad ka sii wadan kartaa saa kuu pause gareynaya kuma duubayo. aad bay muhiim tahay. xaggan kale waxaad aragtaan inuu leeyahay screenshot. inuu yani screenshot leeyahay waad aragtaan halkan screenshot yani uu qaadayo. imika screenshot buu ka qaaday sawirka anoo duubaya ayaan screenshot ka qaadi karaa. marka waad aragtaan muuqaalkii aan qaaday isagoo sawira ayuu soo gelaya. waa kan sawir oo kaas oo delete gareynaya delete iska delete okay. wuxuu soo celiyay meeshaydii
xaggan markan imaado allah mustacaan waxaa kugu jira inuu kuleeyahay halkan create video editor shortcut on desktopkan kuu geynaya buu kuleeyahay video editor. imika haddaan halkaa taabto wuu ii sameeyey. halkan waxaad ku aragtaan waad aragtaan waaye. haddaan iskaga soo noqdo programkan oon dhexda taabto oon kusoo noqdo muraayadii kusoo noqdo halkaa waad ku aragtaan video editor aa yimid. video editor laba jeer baan taabtay yani halkaa maxaa yimid video editor baa yimid. marka waa programka ayuu sidii video aad u edit garaysan lahayd. marka video baan ku edit garayn karnaa videoyada duubna tusaale waxaa video inoogu jira waad ku edit garaysan kartaayo inaad videogii videogaas oo kale inaad jarjari kartid oo intaa doonaysid inaad kala soo hari kartid. yani programku uu dheeryahay waad soo edit garayn kartaa intaasoo kale yani tusaale intaasoo kale dabeetna yani preview yani wax yar baan ka soo qaatay. okay marka yani video waad edit garaysan kartaa waad jarjari kartaa oo video ku saabsan AWS mininka kaasna waa programs insha allah waan idinla wadaagay. aad iyo aad marka muhiim wuxuu leeyahay camera. imika ninkayga wax duubaya halkaadaan furta camerada wuxuu furayaa camera way furayaa waad aragtaan halkaas marka assalaamu calaykum halkaas markaa idinkala hadli karaa halkaasna waad iska xidhi kartaa camerada markaa way furaysaa. aad baan idin salaamaya asxaabta kale wejigayga waad aragtaan. marka aad iyo aad u programkani idinka anfacay inaad fiidiyada ku duubtan telefoonkiina oo aad casharada aadna la wadaagtaan. wixii aad su'aal qabtaana emailkayga waa kan waa halkaas ku jira waad la soo wadaagaysaan insha allah. waa ka emailkaygii aadna waa idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.